dawladdu hadday ballan gasho waa inay fulisaa waxay dastuurka iyo qawaaniinta ku qorteen ee aan khilaafaynin sharciga islaamiga waa in la fuliyaa madaxweynaha la dhaariyay wasiirka la dhaariyay dadkan la wada dhaariyay waa ballan dhaar lagu daray waa ballan waa mawaafiq bay noqdeen waa ahdi dhaarna lagu sii daray waliba oo in la fuliyaa haddii la fulin waayo kuwii bay noqonayaan nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam idan qofka muslimka ah ha ka digtoonaado ballamada uu galayo waxaanu leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu ballan galay wuu fuliyey bale saxaabadu waxay isku dayeen ballanqaadyadu nabigu galay markuu nabi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam kadib inay oofiyaan oo nabi maxamed ballan uu galay inaanu marnaba burin oo waa maxay jaabir ibnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi nabigaa wuxuu igu yidhi low qad jaa'a maalu lbaxrayni qad acطaytuka hakada wahakada wahakada buu nabigu yidhi haddii xoolihii baxrayn ayay yimaadaan jaabirow waan ku siinayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa buu igu yidhi buu yidhi 3 jeer buu nabigu gacanta tilmaamay buu yidhi inuu wax siinayo dabeetana xoolihii baxrayn oo aan imanin buu nabigu geeriyooday markay xoolihii baxrayn wakhtigu amiirka ahaa abubakar ayay xoolihii yimaadeen abubakar baa istaago wuxuu yidhi man kaana lahu cinda rasuuli illaahi ciddatun aw daynun falyatina warkii nebi maxamed uu ballan u qaaday ama dayn ku lahaayow noo kaalay buu leeyahay abubakar wuxuu rabaa inuu fuliyo haddiiba uu nebi maxamed ballan cid uunu qaaday calayhi salaatu wasalaam oo yidhi waxbaan ku siin doonaa inaanay marnaba beenoobin nebigoo geeriyooday marka wuxuu leeyahy ninkii ballan uu nebi maxamed u qaaday amase dayn ku lahaayow noo kaalay jaabir ibnu cabdillaahi baa u yimi waa wuxuu yidhi nebigu wuxuu igu yidhi haddii xoolahaasi kuu yimaadaan sidaa iyo sidaa iyo sidaasaan kuugu xantoobin doonaa kaalay buu ku yidhi dabeetana abubakar xoolihii buu xantoobiyey markaasuu u dhiibay tiri baa la yidhi waa la tiriyey markaasaa la yidhi waa 500 bay noqotay markaasuu yidhi 2 goor oo kale min 500na ka qaada haddaba haddii lagu yidhi sidaa iyo sidaa iyo 3 goor baa lagu xantoobinaya haddii lagu yidhi xantoobada aad tirso oo wixii ay kuu noqoto 3 laabkeed qaado saxaabadu markaa waxay ahayn dad fuliya waxay ballan galaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu waa wixii ballan ay galaan tusaale haddii qof shaqaalaha kontraag uu saxeexo waa inuu qofka shaqaalihiina fuliyaa ninka loo saxeexayna waa inuu fuliyaa dawladdu hadday ballan gasho waa inay fulisaa waxay dastuurka iyo qawaaniinta ku qorteen ee aan khilaafaynin sharciga islaamiga waa in la fuliyaa madaxweynaha la dhaariyay wasiirka la dhaariyay dadkan la wada dhaariyay waa ballan dhaar lagu daray waa ballan waa mawaafiq bay noqdeen waa ahdi dhaarna lagu sii daray waliba waa in la fuliyaa haddii la fulin waayo kuwii bay noqonayaan uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam idan qofka muslimka ah ha ka digtoonaado ballamada uu galayo mid dawladeed ha noqoto mid shicib ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ballanqaad ha noqoto mid qabaa'il ha noqoto qabaa'ilkan mar walba intay heshiiska galaan burinaya noocan nifaaqa bay ku dhacayaan nabigu tilmaamayo noocan cadhada ilaahay ku dhacaysa fa bimaa naqdihim miithaaqahum la'annaahum ba ilaahay ballankooday buriyeen daraaddeed baa lacnadu ugu dhacday qalbi engagu ugu dhacay idan sultaan ahaw ama caaqil ahaw waxaad ballan saxeexday waa inaad fulisaa madaxweyne ahaw wasiir ahaw wixii aad ku dhaaratay waa ballane waa inaad fulisaa qof muslim oo caadi ahaw wixii aad ballan gashay waa inaad fulisaa dadka muslimiintii waa inay bartaan heshiisku iyo ballanku inuu diinta islaamiga wax weyn ku yahay xataa haddaad gaal la gasho